safiirka Somaliland u fadhiya waddanka Djibouti Ambassador Cabdifataax Siciid Axmed ayaa hab miqaam sare ah ku soo dhaweeyay wafdi ballaaran oo ka socda hay'adda tayadhowrka waddanka Somaliland oo siminaar shaqo ku jooga waddanka Djibouti. Wafdigani intii ay ku sugnaayeen safaaradda Somaliland ee waddanka Djibouti ayaa waxay soo indheeyeen qaybaha ay ka kooban tahay safaaradda waddanka Somaliland ee ku taala waddanka Djibouti. waa maanta oo aanu halkan ku soconno wafdi ballaaran oo xagga Somaliland aanu kaga nimi oo ka kooban ururka ganacsatada Diwa iyo Quality Controlki Djibouti ayaan joognaa. waxaan u nimi shaqooyinkeygii caadiga ahayd ee aanu horeba u wadnay ee aanu dowladaha jaarka ku maraynay sida Mombasa, Nairobi, Addis, maantana aanu Djibouti ku joogo. waxaan aad iyo aad ugu mahadnaqayaa madaxda dalka Djibouti ee ugu horeeya madaxweynaheeda Ismaaciil Cumar Geelle sida wanaagsan ee qiimaha badan ee ilaa maanta shaqadii aanu la wadnay naloo waday qaybta wasaaradda caafimaadka ee inspectionska aad iyo aad baan ugu mahadnaqaynaa. maanta oo hawshaasi noo hirgashay waxaanu mahadcelin halkan uga celinaynaa safaaradda Somaliland ee dalka Djibouti safiirkeeda iyo dhammaan staafkiisaba aad iyo aad baan ugu mahadcelinaynaa soo dhaweynta qiimaha iyo qaayaha leh oo shalayto ilaa markii aanu diyaaradda ka soo degnay xataa inta aanan immigration-ka soo gaadhin soo dhaweyntii ay kaga bilaabeen oo ilaa maanta noo socota wixii hawlihii qaranka ee aan uga baahnayna aad iyo aad noogu fududeeyay. aad iyo aad baan ugu mahadcelinaynaa. Djibouti way nooga duwan tahay dalalka kale ee aanu jaarka nahay. runtii aad baan ugu mahadcelinay wafdiga ballaaran ee Somaliland ka socda ee ka kooban ganacsatada iyo hay'adda Quality Controlka. runtii waxaan leeyahay kusoo dhawaada Djibouti oo waddankeennii labaad qarib kuma tihiin. runtii waxaad u baahan tihiin diyaar baan nahay xagga safaarad ahaan haddii diyaad u baahataan facilities kale oo dheeraadana diyaar baan nahay aniga iyo staffkaba. runtii waxaan leeyahay soo dhawaada mar labaad iyo mar saddexaadba. Maxamed Jaamac Waale, warbaahinta qaranka Somaliland, Djibouti.